ilmuhu marka ay dhashaan 6 bilood ee ugu horeysa noloshooda ayaa waxa ku siyaada miisaanka ugu badan. Caanaha naaska 6 bilood ee ugu horeysa noloshooda ayaga ayaa ka koriimo wanaagsan kana miisaan koror fiican caanaha la diyaariyay ee formula milkida. Wiilasha ayaa ka koriimo wanaagsan gabdhaha sanadka ugu horeeya ee noloshooda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc aad u muhiim ah. Mowduucan rabaa inaan ka hadlo waxay tahay koriimada carruurta. Sidaan wada ogsoonahay koriimada carruurta waxaa laga fiiriyaa laba meelood. Labada meel ugu muhiimsan waxay tahay physical development. qaab koriimada ama kobaca ilmaha ee muuqaal ahaaneed iyo waliba kobaca maskax ahaaneed. Milestone-ka ama caqliga maskax ahaan ilmuhu sida ay u koraan. Maantay waxaas oo idilka wada hadli karo. Balse waxaan rabaa inaan si qaas uga hadlo qaybta koriimada muuqaalka physical development. Physical development ilmaha waxaa laga fiirshaa 3 meel oo aad muhiim ah. Midda koowaad ee ugu muhiimsan waxay tahay weight-ka ama miisaanka carruurta. Tan labaadna waxay tahay height-ka ama dherirka ama jooga carruurta. Meesha saddexaadna waxay tahay laga fiirin karo koriimada carruurta ee physical muuqaal ahaan waa wareega madaxa. Haddaba saddexdaas qaybood waa 3 qayb aad u waaweyn. Waxaan rabaa inaan si gaar ah uga hadlo miisaanka carruurta. Miisaanku waa mid ka mid ah halbeegyada laga ogaado koriimada carruurta gaar ahaan physical marka ay korayaan. Sidaan wada ogsoonahay miisaanka gabdhaha iyo wiilashu isku mid ma ahan. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay u soo kala saartay average ama celcelis ahaan tiro laga rabo inay lab ku ahaadaan iyo tiro laga rabo inay dhadig u ahaadaan. Wiilasha ama labka waxaa laga rabaa inay ku dhashaan celcelis ahaan miisaan gaaraya 3.3 kg 3 kilo iyo 300 oo gram. Halka gabdhahana laga doonayo 3 kilo iyo 200 oo gram 3.2 kg. Haddaba meeshaas waxa kaaga cad waxaa sareeya farqiga wiilasha ama labka. Sidaas ay tahay miisaanka carruurta. Ilmaha bila dhameyska ah waxaa laga doonayaa miisaankoodu inuu ahaado inta u dhaxaysa 2 kilo iyo bar ama 2.5 kg ilaa iyo 4 kilo. inta u dhaxaysa ilmaha uu miisaankoodu noqdo waxa la dhihi karaa waa ilmo normal. Laakiin hadduu ilmaha miisaankoodu ka hoos maro 2.5 kg macnaheedu waxay tahay ilmahaasi wuxuu ku sugan yahay xaalad ah low birth weight. Miisaankii fudulashada mid aad u hooseeya waa. Hadduu 4 kg ka badan yahana waa high birth weight. Miisaan culus ayuu ku dhashay ama miisaankiisu uu ka badan yahay sida normalka ah. Waxaan marar badan aragnaa miisaanka ay ku dhashaan ilmuhu in 10% ka mid ah uu ka lumo wax yar kadib marka ay dhashaan. Sidaas ay tahay ma ahan wax laga walwalo. Maxaa yeelay waxa sababay dareeraha ka baxaya jirkooda. Inta badan ilmahaas yar ee dhashay wuxuu miisaankaasi ku soo laabtaa 1 asbuuc gudahooda. Koriimada carruurta iyo miisaan kororka ilmuhu way ku kala duwan yihiin. Ilmuhu marka ay dhashaan 6 bilood ee ugu horeysa noloshooda ayaa waxa ku siyaada miisaanka ugu badan. 6daasi biloodna bisha ugu horeysa ayuu miisaanka ugu badan ilmaha ku siyaada. Hadduu ilmuhu ku dhashay 3 kilo waxaa laga yaabaa bisha koowaad inuu noqdo 4 kilo. Waxaa la sheegaa 4 bil ilaa 6 bil ee ugu horeysa noloshooda asbuuc kasta ilmaha yar jirkooda inuu ku siyaadi karo 113 ilaa 200 oo gram oo culays ah. Sidaas darteed waxaa laga yaabaa 6 bil ugu horeysa ilmaha noloshooda inuu ku siyaado ilaa iyo 5 kg oo ay noqdaan hadhow 8 kg ama 7.9 kg. 6 bil oo ku xigtana miisaanku si tartiib ah ayuu u yaraanayaa. Kama dambays waxaa loo baahan yahay ilmuhu markuu gaaro sanad dhameystiran ama uu noqdo 12 bilood in uu miisaankiisu noqdo 3 laabka miisaankii uu ku dhashay. hadduu 3 kilo ku dhashay inuu noqdo 9 kilo. hadduu 3.2 ku dhashay inuu noqdo 9 kilo dhibic 600 gram ama dhibic 6. sidaas darteed miisaanku si tartiib ayuu markaas u yaraanayaa. miisaankii ku siyaaday bishii ugu horeysay mid la mid ah kuma siyaay doono bisha ku xigta oo intii hore uu ka yaraan doonaa. bisha saddexaad uu ka sii yaraan doonaa. bisha afraad uu ka sii yaraan doonaa. bilba bisha ka dambeeyay maadaama ay yaraanayso kama dambeys ilmaha normalka ee sanadka jira waxaa laga rabaa miisaankooda inuu noqdo 9 kilo ilaa iyo 10 kilo. kobaca ama koriimada carruurta dhanka miisaanka waxaa saameeya waxyaabo kala duwan. waxa ugu horeeya sexiska ama nooca uu yahay ilmuhu, haddii uu lab yahay iyo haddii uu dhadig yahay. sidaan hore isugu soo sheegnaba labka ama wiilasha ayaa ka koriimo wanaagsan gabdhaha sanadka ugu horeeya ee noloshooda. shayga labaad
ee saameeya korriimada carruurta ama kororka miisaankooda waxa ay tahay nafaqada. Waa nooca ay isticmaalaan caanaha, ma caanaha naaska hooyada mase caanaha la diyaariyey ee formula milkiga. Haddii uu isticmaalo ilmuhu caanaha naaska 6 bilood ee ugu horeysa noloshooda, ayaga ayaa ka korriimo wanaagsan kana miisaan koror fiican caanaha la diyaariyey ee formula milkiga. Dhinaca kale waxaa jira xaalado caafimaad darri oo ilmaha ku dhacda kuwaas oo sababa in ilmaha yari miisaankoodii uu siyaadi waayo, korriimadoodiina ay noqon weyso sidii loo baahnaa. Shayga afraad ee saameeya korriimada carruurta ama kororka miisaankooda waxay tahay majuurnimada. Haddii ilmuhu ay yihiin premature ama ilmo aan bila dhamaysan ama ilmaha Soomaalidu dhiciska u taqaano, way ka korriimo yar yihiin marka loo fiiriyo ilmaha bila dhamayska ah, oo waxaa korriimo fiican ilmaha bila dhamayska ah. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mawduuceeni maanta. Haddii aad meeshan nala soo gaartay, waxaan kaa codsanayaa like-ta, share-ta, follow-ga in aadan naga hilmaamin. Aad ayaad u mahadsantahay la socodka barnaamijkan.